السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كدوada warka TV-ga Mylan Hilwaan Idris Abdi Daktar ayaa sheegay intii in helna madalaadka gobolka Banaadir dadka ku jeedaan deegaanada Mylan oo iyo in helna may arab sheeka dhaweynta iyo ku go'doonaan Soomaali intii kala hadaladiisna may kumad haayaysadatan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin hadda soo yeertay oo saxiix oo madaxweynaha saxiixay aqalkii sare ee gobolka Banaadir runtii waxa jiro oo sharci ah aqalka sare sidiis in loo qaybsado 18 ka gobol walbana uu helo 3 tiradana ay noqoto 54 aniga ma dhihin waa wax lagu soo heshiiyay waa dastuurkeena baray cutubka 6 qodobka 72 waa madaxweynaha dastuurkii sharcigii ayuu jibiyay horena waa loo jibiyay dadkii hore u jirin waa u jibiyeen sababtoo waxa way awood qaybsi looma qaybsanin Soomaali 5 beelood waa in loo wada qaybsaday ma dhicin nin hadda 16 kursi haysta haddana waxa ugu daraysaa 13 kursi kale 29 kursi ku lahaana aqalka sare anigana 8 kursi aan ku lahaana ka yeeli mayno 8 bari oo ku harsan sharcina ma aha waxa hadda saxiixdana valid ma aha waa siyaasiyan runtii in siyaasad loo adeegsadana ma aha waqtigii oo dhamaaday haba yaraatee wax ka jir male horaa xad gudubna loogu sameeyay waxaan haynaa maxaa la leeyahay tusaalahan golaha wasiirada macal wasiir waaxyadii haddii wax la isku daro waa 60 agaasimo oo kale hal agaasimaan ka haysanaa gobolka Banaadir 6 degmaan ka deganaa maalintii barnaamij la sameeyay dawladda la taageeray dadka la isticmaalay waa xoogeena dadkeena waay hal degmo ma lihin oo gudoomiye degmo hal taliye kuma lihin hal gudoomiye xaafidaad kuma lihin waxna ugu shaqeynaayo mal waxaan u sheegaa dadweynaheena inaysan waxyaalahaas kale aysan qaadanin haddaadan awood meesha aadan ku lahayn ma aha in lagu isticmaalo tan kale waxaan u sheegaa arrintan in la siyaasadeeyo ma waqtiga waa dhamaaday 8 bari ku warsan baarlamaankan kala bedelay aniga baarlamaankan kamid ahay baarlamaankan go'aan ka gaari karo wax walba aniga maalintii baarlamaanka arrintan laga hadlay xataa ma joogin nasiib daro aniga ilaa hal qof laga gaaray awood qaybsiga 5 beelood wax loo kala qaadanaa wax aqalka sare oo gobolka Banaadir 13 kursi la sameyn karo male haddii awood la isticmaalo annaga deegaana awood ku leenahay waa goosan karnaa Soomaaliland waa goosatay waana tawaabshaysan karnaa wadanka dadkii u soo halgamay ahani oo dhiigii u soo daadiyay dadkiisa ay ku dhamaadeen aan nahay anaga sida loo jabhadayna waa naqaanaa runta xaqiiqdi waay hadda sharciga ku xadgudubtid waxa waaye haba yaraatee wax ku soconaay male madaxweyne arrintaana ha ku raadinin xil taageerada la heedna maanta waxay laga bilaawdo waxa waaye waa hoos u dhacday sababtoo waxa waaye xadgudub sameysay wax jiro ma hadda kor waa ka hadlay 13 gobolka Banaadir cid wax ay qaadi kartana ma leeyahay deegaanaan leeyahay dalan leeyahay waa goosana madaxweyne arrintan waxa waa ku fududaatay sharcina ma aha xilligan wax ma magacaabi karto waxaan u sheegaa shacabka Soomaali ilaa hal qof laga gaaray si simana wax loo kala qaadana hayeelina wax soconaay mala hadalkaygu waxaan ku soo koobaa dalka ee dadka ee diinta loo turo annaga dib marano dhibaato ma wadano waqtigii waa dhamaaday madaxweynaha gudiyadii doorashadii ugu dambeeyay xalay habeen hore xalay soo gudbiyeen tiradii dhineed waxa la rabay maxaa in la soo yimaado laga wada tashado doorashadaas ma dhicin Soomaali carqaladaha imaanka waxa la abuurayaa carqalado annaga taasaan ka soo horjeednaa yeeli mayno waa diidnay runtii madaxweynaha koonfur galbeed waxaan u sheegaa arrintaas inuu ka hadlo shacabka reer koonfur galbeedna meel walba ay joogaan ay ka banaan baxaan sadbursigan lagu sameeyay in qolana 29 kursi ay qaadato qolana 16 kursi ay qaadato qolana ay qaadato 8 kursi yeeli mayno hal qof ilaa lagu kala baxay waxa waaye annaga ma yeelayno si siman in wax loo qaato waay qodobka 72 ee dastuurka oo dhigaya 18 gobol loo qaybsado aqalka sare tirada 54 taasana la kulnaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.